kulankan oo ahaa mid looga hadlayay diyaarinta miisaaniyad sanadeedka 2018 ee maamul goboleedka Jubbaland iyo hagaajinta wada shaqaynta dhinaca maaliyadeed u dhaxaysa wasaaradda maaliyadda Jubbaland iyo wasaaradaha kale ee maamulka ayna soo agaasintay wasaaradda maaliyadda maamul goboleedka Jubbaland ayna ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ay ka mid yihiin wasiir dawlaha madaxtooyada maamul goboleedka Jubbaland Axmed Cabdiraxmaan Xuseen wasiirka maaliyadda Jubbaland Cabdirashiid Jiire Qalile gudoomiyaha guddiga maaliyadda baarlamaanka Jubbaland Xildhibaan Xuseen Xirsi xubno ka socday guddiga shaqaalaha rayidka ee maamulka Jubbaland iyo sidoo kale agaasima waaxeedyada iyo agaasimayaasha guud ee wasaaradaha maamul goboleedka Jubbaland ayaa waxa ugu horeyn kulanka faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha loogu talagalay agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda Jubbaland Mudane Kaamil iyo sidoo kale gudoomiyaha guddiga maaliyadda baarlamaanka Jubbaland Xildhibaan Xuseen Xirsi qaybtii technicalka ama agaasimayaashii guud iyo waxyahoodii wasaaradaha dowlad goboleedka Jubbaland oo u dhan hadafka isugu yimaadeenna waxa uu ahaa in laga doodo oo laga wada tashado budgetka ama miisaaniyadda dawladda ee 2018 sidoo kale waxa uu ahaa in update iyo tala isweydaarsi iyo baraarujin iyo meesha ay wax marayaan inay isla ogaadaan hay'adaha dawliga ah miisaaniyaddii 2017 oo tan hadda aynu ku guda jirno waa kulan sharci ah oo uu nafarayo xeerka maamulidda hantida dadweynaha ama maaliyadda dadweynaha oo ah in xilligan oo kale la bilaabo diyaar garowga iyo doodaha ku saabsan diyaarinta miisaaniyadda soo socota ee sanadka dambe budgetka diyaarinta 2018 waxaan aad u rajaynaynaa in uu aad uga duunaado budgetadii sanadadii hore aynu diyaarin jirnay hadda waxaad ku lahaan doontaan kaalin aad u weyn waxaad ogaan doontaan siduu maaragtay agaasimaha inoo sheegay kaalinta aad ku leedihiin iyo qaabkaad maaragtay u daadihin kartaan in aan helno budget hufan oo dulduleeladiisu aad ay u yar yihiin sanadka 2018ka lafdhabarkina maanta idinkaa u noqon doontaan waxaan rabaa in aad dhowr arrimood muhiimad gooni ah aad siisaan qaababka loo soo diyaarinayo budgetka 2018 ee wasaaradaha aad xoog weyn iskaga saartaan sidii uu u noqon lahaa budget clean ah waxaad ogaan doontaan scrutiny-ga iyo daba istaag aan inugu samayn doono 2018ka inuu aad u sii ballaaran doono oo maaragtay si toos ah aan xafiisyadiina usoo geli doono aan maaragtay inila xisaabtami doono aan ka wada munaashaqoon doono sidaan u samayn lahayn budget dajisan oo stateka uu ku xisaabtamo intaasi kadib ayaa waxaa hadal ka qaatay wasiir dawlaha madaxtooyada maamul goboleedka Jubbaland Axmed Cabdiraxmaan Xuseen iyo sidoo kale wasiirka maaliyadda maamul goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Jiire Qalile oo dhammaan ka warbixiyay muhiimadda ay leedahay kulankan ay maanta ka soo qayb galeen agaasima waaxeedyada iyo agaasimayaasha guud ee wasaaradaha maamul goboleedka Jubbaland taas oo ay ku tilmaameen in ay noqon doonto guusha maaliyadda ee maamul goboleedka Jubbaland arrimo badan bay hor yaalla oo la rabo inaad talooyin badan ka geysataan door fiicanna ka ciyaartaan in aynu dakhligeena kordhino si aynu wax badan u qaban karnaa loo baahan yahay in daldaloolooyinka jira lasoo daboolaa loo baahan yahay in magaranaysa wixii lagu fulin lahaa kow ka ahaydna waa budgetka maanta u fadhidaa wey diyaarinteeda 2018 ma aha kaliya in la yiraahdo wasaaradda maaliyadda miisaaniyadda loo diyaariyo waxaan idinka doonaynaa hay'ado badan oo dakhli abuur leh baa jira wasaaradaha jira waxaan rabnaa wixii xoog ah iyo wixii sidii lagu xoojin lahaa dakhliga ah ee aad heli kartaan iyada lafirkeeda inaad wasaaradda maaliyadda ku soo kordhisaan waxaan rabaa oo kaleento inaysan dhicin in la yiraahdo wasaarad heblo kala miisaaniyaddeeda ka badan aysan ka badan inaysan dhicin wixii xaqiiqda jira wax walba in lagu bees gareeyo
waa markii ugu horeysay oo kulan noocaana loo qabto agaasimo waaxeedyada iyo sidoo kale agaasimayaasha guud ee wasaaradaha maamul goboleedka Jubbaland kuwaas oo looga hadlayo wada shaqaynta diyaarinta dhinaca maaliyadda wasaaradaha maamul goboleedka Jubbaland iyo sidoo kale wasaaradda maaliyadda ee maamulka Jubbaland.